السلام عليكم. waxaan wada ognahay in la soconaa warbaahinta caalamku dhammaan inay hadal hayaan dhulgariirkii weynaa ee shalay ku dhuftay dalalka Turkiga iyo Suuriya. haddaba dhulgariirkaas oo runtii saameyntiisa lahaa oo khasaarihiisuna oo aad u badnaa sida la qiyaasay dhimashada dalka Turkiga inay dhaafayso ilaa 2,000 oo qof, laakiin ay ka badan tahay dhaawacna la sheegayo inuu yahay 11,000 oo qof, laakiin ay ka badan tahay sidoo kale dhismayaasha burburay oo iyagana la soo qiyaasay ay yihiin ilaa 3,000 oo dhisme oo guryo iyo iskugu jira dabaqyo dhammaantoodna ay sagxadda noqdeen. haddaba 1,350 people are now confirmed to have died after that powerful earthquake struck northern Syria and southeast. dadyawga Turkigu waxay aad u hadalhayaan oo runtii ay dhinac u qaadaba ay garan laayeen laba fiideo. waxaan doonayaa labada fiideo in la wadaago. haddaba la socda fiideogan hortiina ka muuqda waxaad arkaysaan aygaas oo qaabku sameynayo ay ka duwan tahay qaababka caadiga ah. haddii qaabkii hore aan nii sheego aygu markuu arko bahal amba markuu arko qof una garanayn waxa uu sameeyaa aad u badan iyo muxuu ahaa movement badan dhaqdhaqaaq badan buu sameeyaa, laakiin aygan uu ka duwan yahay. aygan haddaba wuxuu dhex taagan yahay wadadaas aad arkaysaan, danka bacdi waxa uu u jeedaa oo laftiisa la moodaya inay ka muuqato khalkhal amba inuu qof shoogsan oo kale ay shoogsan oo kale inuu yahay bal wadi dhawqiisu uu ka duwan yahay dhawqiyada hore uu sameyn jiro. aygu waxa uu sameynayaa aana cidiisi hore ahayn, taasoo la leeyahay waxa uu u digayay dadyawgii ku sugnaa dhulkan dhulgariirku ka dhacayay dadyawgii ku sugnaa oo waxba dadku leeyihiin waxba uu saadaalinayay oo prediction uu ka hayay inay soo socoto masiibo naturaliya ayaba dadka Turkidu ay leeyihiin baruntii oo way la yaabayeen aygaasi. way waxa soo qabtay CC kamaradaha wadooyinka ku xidhan aygaas oo ku celcelinay cida noocaas oo malaha dadku aad ugu digaya. haddaba sidoo kalena goorfiida ayaa waxa laga arkay dalka Turkiga in ay jiraan shimbiro runtii aad u weeraamaya cirka oo aad u dawaafay cirka ayaa iyagana laga arkay goorfiida oo soo inaan daaqo jooga baa duubay. runtii waxba la sheegayaa iyagana ay leeyihiin waxay saadaalinayeen oo ay saadaal ka sii bixinayeen in masiibo naturaliya ay soo socoto. isla wada ognahayna waxa ka dhacay Turkiga dhulgariir aanan runtii ay la qiyaasi karin oo lagu qiyaasay 7.8 magnitude culayskiisa. dhulgariirkaas laha saameyntu lahaa iyo khasaaro geysana wayna ka wada warhaynaa. drones xataa lagu duubay runtii waa ku tusay baaxadda ay Turkiga dhulgariirku saameyntu ku sameeyay iyo guryihii aad u dumayaan. runtii dadyawga Turkiga haddaba waxay aad isku weydiinayaan su'aasha ah xawayaanku miyay og yihiin micnaha waxyaabaha natural disasterka oo micnaha qaybka kale ee bini'aadamku ogaan karin miyay og yihiin maadaama prediction noocaas ay bixinayeen intuu dhulgariirku una dhicin. sidoo kale xawayaanada lo'dan iyaguna intuu dhulgariirku dhicin markii ay dareemeen waa kuwa istaagay. runtii waa ka dhacday dalka Turkiga ayna aad ay dadkii Turkiga u yaabayeen runtii. horta runtii waa wax aynu walaalaheen uga tacsiideynayno masiibada ku dhacday inuu alla u boogadhayo wixii ku dhintay barta ku shahiidana ilaahay jannatul firdaws ku abaal mariyo. faamiliyo dhan oo 12 xubnood ka koobnaa oo hal qof ka soo haray baa jira. allana waxaan uga baryaynaa inuu dhaawacyadoodaas uga boogadhago. waxana waxa weeyaan inaynu ku waana qaadano runtii oo masiibooyinkan dhacaya aad arkaysaan haddii Sacuudigii ka soo baxay doog aad arkaysaan haddii barafyo waali aan hore u dhigi jirin ayaan haddii dhul kulaylaha qeyr xad ay gaadhayaan. sidoo kale haddii California laftooda ololaa ka kacay dhulal dhan baa iska dumeeyay baa la sheegayay oo warbaahintu shalay sheegaysay. runtii waxaasoo dhan waxay inoo tusayaan in ay macsideen ay aad u badatay runtii oo macsidii heerka ugu sareeyay bini'aadan ay gaari lahayd ay marayso. maanta in kutubti Allah bilaash lagu gubayo inkasta muslimku raali ka hayn haddana ay ka mid tahay waxyaabo alla ka sii cadhoon karayo. markaas aynu ilaahay usoo toobad keenno, aynu salaaleedna ilaalinno, aynu weysadeena ku baxno, aynu toobad keenno. runtii aynu iska yarayno waxyaabaha foosha xun aynu sheer garaynano. barnaamijkeena maanta intaas ayaan kaga bixi lahaa. barnaamijkan intaas ay maanta kaga
bixi lahaa. Wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.